ayaa ka asala in la dhagax dhigo dekeda 400 mitir ee container terminalka sidaad arkaysa waa halkaa ku sawiran muuqa iyo nidaamka iyo container terminalka iyo taawaradeedaas iyo insha Allah waa horumar weyn in badan baynu saadaalinaynay in badan bay dadku isweydiiyeen dadka qaarna oo ahaayeen 2 sanadood ayaa dib loo dhigayaa laakiin muhiimadda weyn in maanta halkan isku nimay inaynu markhaati ka ahaano waxa weeyaan in dekadii la dhagax dhigay waxa kaloo fadhiya halkan ku soo dhaweynayaa shirkadii dhismaha bilaabaysay oo mas'uulkii ugu sarreeyay halkan ka fadhiyo oo shirkadda la yidhaahdo Shifa Nahda oo ninkii ugu sarreeyay noo fadhiyo Abdul Shami isaguna kamida wafdiga runtii muddo dheer ayaynu sugaynay waa horumarkii u horreeyay Somaliland bilowga ahaa waxaan mar labaad in marsax can only be attracted if we jointly together succeed in developing the remaining capacity in terms of performance. The moment that happens, reputation goes up, capacity increases, and eventually qualified personnel at that stage will most probably be sent abroad from Somaliland to international portfolio of the world, because this is what we do today in different ports which we manage. Approximately 80 ports around the world. Xoogkiina waaweynaa mid ka mid ah oo ah maalgashiga dibadeed oo Soomaaliya hesho. Waxaa kaloo ugu mahadnaqaynaa dowladda iyo shacabka walaalahay ee suurtaga Imaaraadka Carabta iyo shirkadda DP World ee naga dhaxay xiriirka walaaltinimada qotada dheer leh oo ku soo dhiiraday maalgelintaas ballaaran oo tii ugu horeysay ee nooceeda oo hela qaranka Soomaaliya maanta runtii waa maalin weyn oo leh mudnaanteeda iyo qadarinteeda waa maalinta dadka reer Somaliland ay sugayeen maantana waxaynu halkan u joognaa inaynu dhagax dhigno balaarintii dekada Berbera wajigii